waxyaabaha dhadhanka cibaadada lagu helo waxaa ka mid ah naftaada oo aad jihaad xoog leh la gasho naftan inay ku jirtaa waa cadowga koowaad aynu leenahay shaytaan iyada heshiis inoo ah oo saaxiib inoo ah qof kasta oo muslim ah shaydaan baa ku lamaan qariin baa la yiraahdaa qariin diinta way sheegtay ka kugu lamaani waa gaal muslim xitaa ma qariin kugu lamaan oo gaala iyo naf mushkilad wadataa kugu jira waa ku saaxiib lugooyadaada ka shaqaynaya jihaad xoog leh naftaada waa inaad la gashaa ilaah markuu tilmaamaya wuxuu yiri fa'budhu ilaahi aabud wastabir li'ibadatihi una adkayso ilaahi cibaadadiisa عبادة إلهي أصبر وأكيس وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها إهلكاك صلاة عبادة أمر أو قليسي لا نسألك رزقا أرزاق رزق ويدين منه نحن نرزقك أنك أرزاقنا بيلي مصاريف أنا كسينا هذه عبادة كأتكو وإهلكاك هجاتي والعاقبة للمتقين عرفت الضنب أنت إلهي كبقتا أي إسكاله رسولك وعيري المجاهد من جاهد نفسه مجاهد هو قفك النفتيسة لاتشهاد أبو النبي عليه الصلاة والسلام ننكم إذا دتك وعناية صالحين تها أي وحيري naftayda inaan cibaadada ogolaysiiyo oo ilaahay ku xidho oo quraanka iyo salaada iyo cibaadada iyo diintu ay dhadhansato markii aan naftayda ku jiiday ku khasbayay way barooranaysaa oo may ogolay markaan ogolaysiiyo qabadsiiyayna iyadoo faraxsan bay maanta masaajidka iyo cibaadada iyo horoordaysaa iyadu ana ogolaysiiyo ku khasbay buu dadkii caynkaas ahayn qodobka labaad cibaadada dhankeeda waxa lagu helaa dunuubta iyo dambiyada inaad ka fogaato dambiga yar iyo dambiga weynba iska ilaali maxaa yeelay dunuubtu qalbigu qofka bani aadamka muslimka waa xaashi cad oo kale dambi markaad gasho dhibic iyo baag madow baa qalbigaaga ku dhacaya ilaa marka dambi qalbigaagu uu madoobaado iska ilaali qodobka saddexaad ee cibaadada dhankeeda laga helo cuntada inaad cunto badan cunto biyo badan iyo sharaab badan aad cabto hadalkaagu inuu bato daawashada xumaha inaad daawato afartaaba waxay nafta ka fogeeyaan dhadhanka cibaadada iyo aakhiro u diyaar garowgeeda sida awgeed rasuulku wuxuu yiri bani aadamku wuxuu buuxiyo weel uu buuxiyo weelka ugu shar badani waa calooshiisa qofkii lagama maarmaanay noqoto inuu caloosha wax ku rido saddex calooshiisa ha u qaybiyo qofka waxa ku filan hurmooyin intuu cuno gaajada ka ilaaliya